dadka Soomaaliyeed ee maantada nool waxay la daalaa dhacayaan caqabado aad u fara badan oo saameyn ba'an ku leh nolol maalmeedkooda. Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah kuwa ka haysta xagga arrimaha bulshada, xagga caafimaadka, haddii ay noqon lahayd cudurro joogto ah ee faafa oo weligeed aanu ku dhalanay sanooyin fara badan ee maxaan ku rahdaa qarniyo badan ina haysta ilaa haddana socda. Kuwa cusub oo hadda maxaan ku rahdaa non communicable diseases loo yaqaano chronic diseases oo hadday ahaan lahayd kaadi sokor iyo cancer, waxyaabo badan oo nagu cusub oo hadda aanu leenahay cudurrada cusub ee hadda nagu soo kordhay ayaa jira. Kuwa ka dhashay dagaalada sokeeye oo iyana runtii aad u badan baa jira. Waxaasoo idile waxay hoos u dhigeen tayada dadkeena, tayada nolosha qoys kasta oo Soomaaliyeed. Marka qolkan YouTube-ka ah ayaan doonayaa inaan ku iftiimiyo qeybo ka mid ah dhibaatooyinka, xalka macquulka ah ee ii muuqdana aan ku soo bandhigo si tayada nolosha iyo horumarka bulshadeenna aan wax uga geysto. Marka su-aasha runtii muhiimka waxay tahay 114 aqaana waxaa dhici karaysa in lagu yiraahdo horta yaa ka dhageysanaya. Marka si taa aan xal ugu helo su-aasha hortaala waxay tahay aniga isweydiinayo warniyahow waa adigan halkan noo soo fariistay yaa awood kuu siiyey inaad ka hadashidba arrimahan dadkeena haysta iyo xalkooda. Marka waxaan doonayaa marka hore inaan ku bilaabo horta kumaanahay, aqoontayda maxay tahay, iyo awoodda ama credentialka aan haysto inaan ka hadlo caafimaadka dadkayga iyo xalkan aan soo gudbinayo maxay yihiin. Haddaan wax yar kaaga tilmaamo taariikh nololeedkayga waxa ay noqonaysaa anigu waxaan ku dhashay horta Jamaame, magaalo ku taalla gobolka Jubbada Hoose. Halkaas ayaan waxbarashadayda dugsiga Quraanka iyo hoose iyo dhexe iyo sareba halkaasaan ku soo qaatay. Dugsiga sare waxaan ka baxay bartamihii 84. labadii sano ku xigtana waxaanu marnay gurmadkii qaranka ahaa 85 iyo 86. kadibna waxay noqotay in aan nasiib u helo markaan gurmadka ka baxay kadib inaan la foole College of Education inaan waxbarashadayda ka bilaabo oo biological sciences ayaa nasiib u helay 87 ilaa 91. nasiib darro dadkii waxaan ku jiray aan shahaado qaadan January 91 ay u suurageli weysay inay shahaadada qaataan. macallimiinta runtii aan aad ka ugu xasuustaan aad u jeclaa waxaa ka mid ah markaan biological science-ka aan baranayay macallinkii ii dhigay human anatomy and physiology Professor Hussein Muuse Cabdi. I hope inuu nool yahay hadduu dhintana Allah u naxariisto. iyo macallin kaloo biochemistry ii dhigay Professor Cabdi Timir la oran jiray. iyo macallinkayga kale embryology-ga ii dhigay Cabdirasaaq Jaamac Janagale oo aan iska warhayno oo hadda Minnesota ku nool. runtii maadooyinkaas waxay ahayd maadooyinkii runtii jeclaysiiyey waxyaabo badan oo mustaqbalka aan sameyn doono dhanka caafimaadka ah. waxay noqotay kadib in wadankii dhibaato ay ka dhacdo oo qof waliba uu gurigiisii ku noqdo. aniga Lower Jubbada Hoose aan ku noqday, kadibna waxaan ku dambeeyay xerooyin qaxootiyaha ee Kenya ku yaala. dabadeedna waxaa ii suura gashay inaan jaamacad la yidhaahdo Nairobi University of Nairobi inaan medical parasitology aan ka sameeyo iyo kadibna aan u wareego Kenyatta University halkaasoo iyana aan ka dhameeyay. maxaa yeelay University of Nairobi waxaa nagu dhacay shaqo joojin oo saameysay waxbarashadeennii, kadibna waxaan transfer u sameeyay Kenyatta University. waxaasoo dhanna waxbarashadayda waxaa iga bixisay hay-ad loo yaqaano DAAD, German Academic Exchange, oo runtii aan ugu mahadinayo. la-aantood aysan suura gasheen in aan waxbarashadayda postgraduate-ka aan sameeyo. kadibna waxaa ii suura gashay in aan meeshaasi marka sanadii ugu dambeysay masterka aan sameynayay in aan helo dhakhtar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Dr. Rashid Amaan oo markaasi ka ahaa directorka
molecular biogenetics department biodiversity department ee ku taala ee National Museum of Kenya in aan meeshaasi aan researchkayga ku sameeyo anigoo markii ugu horreysay tropical medicine-ka aad u jeclaa kadibna rabay inaan maxaan ku rahdaa Camry iyo CDC xarun ay ku leedahay maxaan ku rahdaa ilaah waa ku roon yahay gobolada kale ee westiga Kenya ama waxaan aad ku jeclaa westiga maxaan ku rahdaa coastiga ee Kilifi ayaan runtii aad u daneynayay kama dambeystina waxay noqotay inaan Nairobi aan saldhig ka dhigto oo halkaasi aan maxaa lahaa aan ku sameeyo research thesiskaygii wax weyn baa iga kordhay intaan jooga Kenya ama Nairobi gaar ahaan field trips fara badan cilmi baarisyo fara badan waxyaalo badan baan ka qayb qaatay siiba bilharzia oo schistosomiasis ah intestinal parasites oo aan idina aan ka shaqeynayo ku shaqo lahaa iyo waxyaabo badan oo parasite ku shaqo leh baan aad u daneynay inkastoo malaria aan rabay laakiin saysan aan nasiibkayga noqon adigu intaas muddo aan wixii ka horeeyay ilaa 98 intaan la soo gaaray intaas ku mashquulsanaa dabadeedna waxa ay suura gashay inaan Mareykanka imaado oo aan saldhigto magaalo Seattle la yiraahdo halkaas oo aan shaqo ka bilaabay 7 sano u shaqeynayay jaamacadda halkan ku taala ee immunology department qaybteeda ah University of Washington School of Medicine waxa shaqadeedana ahayd basic science research oo immunology ah oo waxaan T cell iyo B cell iyo waxa la yiraahdo siiba T cell T tolerance wax la yiraahdo ayaan muddo 7 sano ka shaqeynayay dabadeedna waxa ii suura gashay in aan dib ugu noqdo school oo aan maadada la yiraahdo global health oo aan runtii aad u daneynayay aan dib ugu laabto markaan dib ugu laabtana 2 sano kadib waxaan ka soo qaatay maadada graduate degree-ga ee MBH-ka halkaasi oo ahaa masterkayga labaad runtiina waxa ii suura gashay markaa wixii ka dambeeyay muddo hadda 20 sano laga joogo ku dhawaad waa 19 sano shaqaynaan ka bilaabo King County-gan hadday noqon lahayd non-profit inaan ka shaqeeyo ama aan asaaso inay noqotay maxaan ku rahdaa inaan dawladda u shaqeeyo ama aan u shaqeeyo maxaan ku rahdaa King County Public Health ayuun baan ku involved ku ahaa marka waxyaalaha ii suura galay inaan ka shaqeeyo waxaa ka mid ah infectious diseases ku cudurrada baaha kuwa kale aanan baahina chronic disease ka ah nutrition related diseases ama cudurrada loo yaqaan non communicable diseases diabetic iyo ay ugu horeyso kadibna waxaan ku dambeeyay zoonotic diseases iyo environmental health halkaas oo runtii field work iyo code enforcement iyo public health emergency noocyo kala duwan aan ka shaqeeyay haddoo aan maaraya ka ahay barnaamij loo yaqaan residential service programna oo 12 sano ugu dambeysay iyana waxay dhaxal siisay inaan bulshada ku dhaqan deegaankeena ee tiradooda gaaraysa 2 milyan iyo 300,000 in aan mas'uuliyadaasi dadka loo xilsaaray aan qaybteeda ka qaato marka adiga mas'uuliyad fara badan baa runtii iyo aqoon fara badan iyo practice fara badan baa runtii sida public health ugu shaqeeyo aan bartay kadibna ku shaqeeyay marka aqoontaasi iyo experience-gaasi isbahaysanaya iyo waxyaabo badan oo soo joogay halkan locally iyo globally dibaddaba ayaan doonayaa in aan runtii aan halkan ku soo bandhigo oo aan dadkayga la wadaago ujeedada aan leeyahayna waxa weeyaan in aan la wadaago dadkayga the practical insight waxyaalaha public health-ga looga baahan yahay ama technical skills-ka ee qofka professionalka xirfadlaha public health-ga iyo anoo ugu talagelaya markaa dadkaygii xaalad ay ku sugan yihiin hadday noqon lahayd wadankii iyo hadday noqon lahayd diasporadaba in aan miiska soo saaro faaqido aanna maxaa la dhihi jiray u present gareeyo xuluulka ama xalalka jira ee looga baahnaa haddii uu ummadeenna ay leedahay dowlad iyo nidaam shaqaynaya sidii loo baahnaa in bulshada nidaamkan caafimaad ee dadweynaha inuu u shaqeeyo haddii aanu shaqeynayna sababta aanu u shaqeynayn ay tahay funding iyo wax la mid ah iyo haddii qoli fankii loogu talagalaba haddii qolo kale ay
ku jawaabka iska gashanaysana in bulshada markaasi ay meesha fahmaan oo ay wacyigooda kaco oo ay awood yeeshaan dabadeedna xaqooda ay dhacsadaan ayaa qayb ka mid ah. marka su-aasheeda waxaa saldhig u ah yaa ka mas-uula dhibkan jira, yaa ka mas-uula waxa way noqonaysaa the underlying marka statementiga aan mar kastaba marna qofka isagaa ka mas-uula naftiisa halaagaya, marna bulsho dhan baa ka mas-uula, marna dowladana mar kastaba waxa weeye mas-uuliyadeedu mar hadday sheegatay xilka dowladnimo mar kastaba mas-uuliyaddu way qayb bay ka tahay ama iyadaa koo mas-uula. marka hadduu allaydmo waxaad maqli doontaan anigoo mar kastaba isticmaalaya yaa ka mas-uula, maxaa yeelay culays iyo waxaan dareemayaa dayac fara badan. marka insha allahu haddaan kuusoo gaabiyo aqoontayda iyo waxbarashadeeda iyo waxay dhexal siiyey inaan ka hadlo barnaamijkan waa intaa.